xaalkiina ka warama maasha allah boqolkiiba boqol la fiican yahay baa filaya asxaabta qaaliga kusoo dhawaada janalka maxamed cabdi muntiga leegtana saaxiib kusii dhaaf xagga hoose sheertana saaxiib asxaabtaada si cilmi uga faa'iidaan usii fidi wixii talo iyo cashar saaxiib yar ku saabsan mobilada androidka ama ku shuban karaa cv builder ama wax cv-ga dhisi kara cv waxa weeye waxa qofku ku xamaalinayo ee runtii aqoontiisa kusoo bandhigay kula tartamay ee hablaha kula tartamayso ee aqoontii qofku kusoo bandhigayo aqoontaadaad soo bandhigaysa waxaad kusoo bandhigaysaa laba waraaqood yaryar ama hal waraaqod ayaad kusoo bandhigaysaa taasuna waa habka sharciga marka sharciga leegayana dee waxa weeyaan inaad cv shaqadaada ay u qalanto oo ah inaad tan aad adiga iyo shaqada ismatch garanaysaan iyo aqoonta taqaanaa waa inay labadaas ismatch gareeyaan oo aad labadaas ay isu yimaadaan oo runtii ay noqdaan laba wax oo runtii isku saameelan oo runtii aad noqotaa qof aqoontiisa ku shaqeynaya iyo professionkiisa markay sidaa tahay waxaanu gelaynaa asxaabey bal waxa weeyaan cv-ga 5 title ama 7 title ama 7 ciwaan unba inta badan ugu badan waxa weeye waxa la yiraahdo contact informationka waxa la educational backgroundka waxa la work experience-ga waxa la yiraahdo yacni achievementska waxa la reference-ka yani waxyaabaha ugu waaweyn kuwaas ugu waaweyn marka asxaabay qofku waa inuu qofka horta marka uu qoro contact informationkiisa meesha laga soo xiriyo addresskiisa magaalada degan yahay wadanku degan yahay emailkiisa magaciisa ugu sareeyo profile-ka waa in profile bay yar raacaan kama qaar objective yiraahdaan yani qofku inuu iska yar sheekeeyo ila qualified noocaas baan dynamic baan energetic baan honest baan hard worker baan waxyaabo noocaas oo yaryar oo kooban marka asxaabtay cv-ga baan ma qorayna waxaan ku qoraynaa application ku jira play store-ka inta badan dad gasho waad ka helaysaa play store-ka oo kale ayaad ku qoraysaa oo kale imika kale markaad gasho oo aad oranaysaa waxaan u baahanahay my resume cv builder oo kale aad leedahay my resume cv builder oo kale aad ku qoraysaa my resume cv builder asxaabta waa ka soo baxay waa ka ugu sareeyo weeyaan markiiba uu soo baxay aniga asxaabtii ugu jira open view ku leeyahay my resume builder cv free jobs kaasasa asxaabtay ayaa jira kaas markuu jiro asxaabtay waxa weeyaan isaga markaad gudihiisa gasho cv-gaagii buu halkaas soo dhigayaa aad waxaad gashatay weeyaan qof kasta wuxuu gashado buu soo dhigayaa 5 qaybood ilaa 7 qaybood ilaa 8 qaybood buu ka kooban yahay asxaabtay marka waxa weeyaan imko kale halkan oo kale tusaalihii baynu kusii qoranaynaa imko kale qofkaas waxa la yiraahdaa asma halka waxa ku qoran inaad runtii aad meesha degan tahay waxa aad qorto oo aad ka sheekayso oo qofku qoro dee cv-ga qaabka loo qorayo waan wada garanaynaa you like this app no waa dad tirado iyo dad yes tirado feedback nagu soo celiyo waxaasay ku leeyihiin laakiin asxaabtay looma joojiyo asxaabtay waxaan imika ay sameynaynaa cv cusub oo halkiisaynu sameynaynaa marka sidaa u furto waxaa kusoo baxaya khaanada yar start by creating profile ayuu ku leeyahay marka halkan yacnihii faylka aad qorayso magaciisa ka gashanaysaa oo kale halkaad dhiganaysaa desktop ka dhiganaysaa ama adiga pdf ka dhiganaysaa mobile ka gashanaysaa waxaan qorayaa oo kale cv ayaa halkaa odhanaya ama magacaagaba ku qorba Muhammad ku qor Muhammad asxaabtay waxaan u create new baad leedahay markaas ku soo baxaya contact information waa ciwaanka ugu horeeya ee inta badan ugu muhiimsan ee qofka halka laga soo xiriyo addresskiisa waxa uu inuu qoro markii waxaad qoraysaa magacaaga maxamed cabdi ayaad qoraysaa oo kale tusaale ahaan oo kale maxamed cabdi ayaad qoraysaa maxamed cabdi addresski baa barta ku jira addresska waxa weeye inaad qorto oo kale halkuu jooga Hargeysa marka caynkaas oo kale tahay Hargeysa oo kale markaad qorto waxaad qoraysaa oo kale waxaad ku xigsiinaysaa Hargeysa oo kale Hercawr /tired baad raacinaysaa halka u dhaxaysiinaysaa Hercawr oo kale aad leedahay saasay u qorantaa waxaad oranaysaa laba dhibcood yar inta saas oo kale u saartado laba dhibcood yar inta saas oo kale u dhigto ayaad lambarkaaga qoraysaa Soomaaliya nambarkii Soomaaliyaad qoraysaa yacni waad furaha raacinaysaa +252 tusaalahan oo kale kaasiga lambarkii Soomaaliya kala qoraysaa 77 saas oo kale oranaysaa lambarkaaga barta ku qoraysaa lambarka markaad qorto halkan hoose waxa kugu qoran
markaas asxaabtay waa soo halka lambarka lagu qori maayo waxaad ku qoraysaa meesha joogtid wadanka halka magaalada joogto iyo ciwaankaaga inagu Soomaaliya address ma laha asxaabtay laakiin anigu Hargeysa oo kale ayaan ku qoray barta Hargeysa Harawr oo kale iskaga qoray way address ma lihin inagu dee leenu soo hagaajiyo waxa ma leenu soo hagaago email ID baa barta ku qoran mohammed@gmail.com oo kala qoraysa mobile number baa halka ku qoraysa oo kale +252 63 markaas lambarkii qoraysa +252 63 445 saasoo kale qoraysa saa markaad qorto save baad leedahay save marka tiraahdo waxa kugu xiga academic amaba halka inagu aynu naqaano educational background markaad sidaa u furto waxa ku soo baxaya academic details ka ku soo baxaya list highest level of education university la taxbiib ku leeyahay marka ugu horeysa barashooyinkaaga sare iyo maaragtay kugu soo horeeyay sida uu soo kala horeeyay barashooyinkaaga baad taxaysa maxaad qaadatay degree baad qaadatay ma course baad qaadatay ma diploma baad qaadatay degree baad halka oranaysa degree oo kala oranaysa tusaale aniga saasan qoranaya degree waxa kala gelinaysa school college university meesha ka qaadatay University of Amud baan ka qaadatay baan Amud University ama Bogolis tusaale ahaan asxaabtay university asxaabta qaaliga percentage-ka waxa lagu qiimeeyaa percentage baa mise GPA buu ahaa imtixaanka waxa lagu qiimeeyaa dhowr wax marka percentage-kaas uu iyo GPA-ga iyo waxyaabo noocaas marka GPA oo kale waxaad ka keentay markiska 3.5 oo kale hadda tiraado ama 3.7 A weeyaan kaas oo kale aan ka keenay oo kale tusaale ahaan oranaysa graduated waan qalin jabiyay goorma waxa sanadkan qalin jabisay year of passing ka dhaaftay waxa 2011 waxa save pad leedahay sababta markaa ka save galayso dad doonto mid kale ku dari kartaa waxaan kala qaatay oo kala qaatay diploma ayaan qaatay diploma xagga ka qaatay jaamacadda ka qaatay abaarso tech oo kala doonaysa abaarso tech waa tusaale asxaabtay waxaan wadaa waxa lagu qiimeeyay GPA buu ahaa GPA-gi maxaad keentay 3 baan keenay 3 iyo graduated sanadkii buu ahaa 2012 oo kale waxa save pad leedahay save marka tirada asxaabtii waxaad u gelinaysaa work experience shaqada qabatay maxay ahayd shaqadii aad qaban jirtay shaqooyinka soo qabatay maxay ahaayeen waxaan shaqooyinkii waxaan imika waxaan list your latest experience first qorb buu ku leeyahay markaas si uu soo kala horeeyeen baa inta badan loo qoraa imika kale waxaad ka shaqeynaysay 2016 waxaad may organization ku waxa kale heegan waa tusaale ahaan asxaabtay waxdaba maaha tusaale weeyaan tusayoon waxaad u haydaa content baan u ahaa content ayaan u ahaa maxaad muhiimka ka shaqeysaa mise markii hore waad ka shaqeynaysay ma bir hore ka shaqeyn jiray previously employed baan ahaa imika la shaqo rabaa from imsidi baad laga soo bilaabo eedu shaqeynaysay halka markaad ku dhufato waxa ku soo baxay waqtigii 2000 iyo ku soo baxaysa oo kale waxaas lambarkii yani calendar yearkii baa ku soo baxay choose month year labada midkood labadii waa ku dooran kana taabkaas uma taabanaysa abriil 2010 baan u shaqeynay faro ilaa iyo duration kimsi waa ku dambeysay ka timi 2017 abriil markaas labadaas sano u shaqeynay wax le 7 sano u shaqeynay roolka qaban jirtay muxuu ahaa roolka dabad qaban jirtay waa kan taxaysa wixii qaban jirtay waxa jira wax la yiraahdo accountabilities and responsibilities wixii aad halka markaad qabanaysay ee shaqada aad haysay aad qaban jirtay ayaad markaa taxaysaa way waxa way qofku waa inuu taxaa asxaabta mid kale waxa jira oo sida yar leeyahay oo net baa jira oo ku caawinaya oo net markaa wuxuu ka saacidayaa inaad markiiba aad yani wixii aad aqoon adada content oo kale aad leedahay muxuu aqoonta qabtaa muxuu duties responsibility lagu baahay maxay tahay markiiba waad gelinaysaa search yar oo net baa leeyahay markaad ku qorto uu ku soo baxaya google marka waad ku baaranaysaa wixii aad marba dad pharmacology medicine taqaan medicine-ka waxaad medicine-ka ka taqaanay medicine muxuu qabtaa duties maxay waxaad ku qoraysaa roolkii wana saaxiib yaalnimo roolkii markay timaado roolka qaban jirtay maxay ahayd making financial review and analysis oo kala doonaysaa ilaa xisaabaadkan ku shaqo lahaa making financial reviewing and analyzing and
analyzing oo kale saada tirado role labaad baan qaban jiray oo tusaalahaan oo kale role labaad baan qaban jiray oo kale muxuu ahaa oo kale yacnihii inaan yacnihii aan organizationka hadba aan wixii maaragtay aan qabto kale aan recording oo kale sameeyo recording files oo kale ayaan faylashaan record gareyn jiray oo kale saas oo kale safe baad leedahay safe marka haddaad shaqo kale aad qaban jirtay waad ku daraysaa oo marka project marka waxaa kusoo baxaya lambarka shanaad oo kale aad ku dhufanaysaa projectga iyo kaas waxa weeyaan wuxuu ku shaqada iyo qaabkaad codsanayso iyo uu ku saabsan yahay marka waxyaabaha imika oo kale haddaad imika aad tagto meesha la yidhaahdo halka la yidhaahdo meesha shanaad waxaa kugu qoran field of interests ayaa kugu qoran skillski waa kugu qoran waxaa kugu qoran strengthski iyo hobbiska waa kugu qoran marka fieldiska aad yacni interest garaysa waa kuwii accounting and finance ayaad leedahay mid labaad baad ku darsan kartaa waxaa oranaysaa kale computer science ayaad leedahay waxaad ku xigay skills maxaad taqaanaa adiga computer skills baan aqaanaa computer skills ayaan aqaanaa waxaa ku xiga oo kale waxaad leedahay waxaan aqaanaa oo kale communication skills baan aqaanaa ayaad leedahay oo kale marka intaad tirahdo balastaas waa ka daris maynasaasna waa ka jiray saaxiib yaal hobbiski baad imanaysa maxaad strengthskaagu maxay yihiin strengthska hadda waa halkaas waxa weeye su-aasha qofka inta badan la weydiiya maxaad daciif ku tahay maxaad awood ku leedahay imika oo kale kan wuxuu ku leeyahay maxaad strengthskaaga maxaa hobbiskaaga marka waxa weeye strengthskaaga aad sheegaysa strengthskaaga wax yani shaqadan runtii aan waxba runtii wax wanaagsan u talaya mooye wax kale ma sheegaysid oo ma odhanaysid dee waan xoog weyn waan dagaal badanay waxaa odhan maysa wood baan le odhan maysid dee waxaa odhanaysa oo kale good interpersonal skills good interpersonal skills baan le haye plus mid kale oo aynu sheegnay asxaabay waxaynu odhan karnaa oo kale capacity to work under pressure capacity to work under pressure labadaa haddaynu ku dirnaa asxaabtay waa ku anfacaysa labadaas oo kale haddaad tirahdo dee waxa weeyaan waa gobonimo hobbiski baad imanaysa hobbiskaaga waxaa inta badan laguma muujiyo sifiyada laakiin waa iska kan uu wataa hobbiska oo kale waxaa oranaysa holy quraan oo kale ayaan xiiseeyaa oo hobbiskaygu yahay oo aan aad uga helaa holy quraan oo kale iyo kasoo qaado oo kale football update safety waa cv-ga la update garanaya marka dambeysa waxaad u gudbaysaa asxaabtahay meesha ay ku qoran tahay referenceka asxaabtay iska habeeya inta badan qofkaad ku qoranayso qof ay istaqaaniin oo ku garanayo inuu yahay waan dedejinaya asxaabtay qofka ku garanayo titlkiisa iyo wixiisa taqaano oo runtii aan been ka sheegan inuu yahay oo kale inka cali oo kale aan ku qoranaya cali axmed oo kale tusaalahaan oo kale waa tusaale destinationka muxuu qabtaa shaqada muxuu yahay waa cashier waxaa ka shaqeeyaaba ku xigtay institutionka uu ka shaqeeyo wuxuu ka shaqeeyaa kale ministry of finance buu ka shaqeeyaa intay doontaba ahaatee emailkiisa sheegaysaa waxaad oranaysaa oo kale cali 12@hotmail.com oo kale aad oranaysaa hotmail.com oo kale aad oranaysaa yacnihii mobilkii foonkiisaad qoraysaa plus 252 sida inta badan professionka fiican ama yacni adduunyada lasla qaatay in lambarka qofka iyo waxiisaba la qoro si loola xiriiro layaa ninkaa waxaan ka taqaanaa 44 wax noocaasa lambar noocaasa baad qoraysaa oo kale tusaale ahaan oo kale markaad qorto oo aad yacni lambarkiisaas oo kale aad u qorto safe baad leedahay safe markaad tirahdo doonto qof kale aad ku darsanaysaa waa la kordhistaa halka asxaabta eedhka waxaa kusoo baxaya photo iyo sign waa saxiixii iyo sawirkii inagu saxiix iyo sawirtoona ma raacino laakiin waxa weeye balnaad inuu isku dayaynaa inaan saan u barano footadaas kaasoo kale ku dhufanaysaa foota kusoo baxaysa foota markay kusoo baxdo footadaas kusii dhufanaysaa marka waxa weeye ma iminkaas iska qaadaysaa mise mid baad halkaa kala soo tegaysa ku odhan karaa marka laakiin adigu waa inaad tirahdo waxaan rabaa inaan soo qaato oo sawirku waad soo qaadanaysaa gudahaad kasoo qaadanaysaa oo dee sawiraanta kugu jira baad dee mid fiican oo dee aad soo habaysatay oo kale ayaad soo qaadanaysaa oo dee ku yaalay oo kale marka inanka oo kale tusaale ahaan
shayga isagaaba soo qaadanaynaa. Asxaabtay waa tijaaboon. marka sawirkiisa caynkaa tiri wuxuu ku leeyahay complete action using color. waa sawirkiisa soo qaadanayna asxaabtay waynu ku celinaynaa. si calaamada channelka aynu soo qaadanaynaa. calaamada channelku waa education something is wrong. asxaabtay waxa weeyaan marka sawirkii waad soo qaadato waa ka ku yaalo kale. markaad soo qaadato aad sawirka soo geliso ayaad runtii sawirku ku yaala iminka sign ayaa ku taala halka. marka asxaabtay markaad waxaan uu ku leeyahay sawir waxaad samaysaa saxiixiyo wuxuu ku leeyahay upload from fileka kasoo qaado saxiixaaga kugu jira ama halkan ku samee. midoo kale kaasoo kale anigu halkan oo kale aan ku sameynayaa. kaasoo kale aan sameeyey tusaale waa saxiixaasoo kale safe baan odhanaya. macallin meesha sayinkaa ku taala moogtahay. revisionkan maynaan gaadhin midha inagu weli soomaalidu weli halkaa may gaadhin dee kulley inkastoo application yahay haddana dee saxiixaas iyo waxaas maynaan moogtahay. asxaabtay tankaynu ku dhufanaynaa oo cover letterka oo kale ah. iminka cover letterka oo kale dee inaad raaciso shaqadii aad usoo qabsan ninkii madaxda ahaa iminka board qofkii dee shaqadan aad ka codsanayso oo kale inaad dee aad wixiisii raaciso aad tirahdo dee application letter yar waraaq yaro cover letter la inaad meel raaciso dee date-kii uu ku qoray adresskii qofka u direysay iyo meesha u direysay boardgiina uu ku qoraya dear Heron manager I am applying for senior management position. kaasa marwalba si kaas ayuunbaad markaa aad leedahay la soo xiriira lambarkii waa ka inaad si dhaqso ay usoo jawaabi doontaa ma rajeynaya waxyaaba noocaasa. marka safe baad leedahay. safe marka tirahdo generate baad tegaysa. kaas asxaabi waxa weeyaan dee CV wuxuu leeyahay qaab badan oo u ekaanayo. marka qaabkan bal u ekaanayo ayuu leeyahay. marka dooro buu leeyahay. marka anigu kale professional resume 1 oo kale aan iska odhanayaa. cover letterka raaci baan leeyahay. generate baan leeyahay. generate markaan idhaahdo generate resume markaan idhaahdo review na odhanayaa. review markaan idhaahdo wuxuu ku leeyahay PDF kaad ku furaysaa ku eegaysaa. xisaabta CV-gan haddaba qornay bal aynu eegno haddaba aynu ku qornay maxay applicationka la yidhaahdo my resume CV builder kaasaa la yidhahdaa. marka asxaabtay wuxuu u baahan yahay markasta inaad applicationkii aad horta mobilkaaga ku jiro ood soo download garaysato ood soo saarato. asxaabtay uu yara raagay iga raallihaada uu iga yara raagay. iminka kale waxaa usoo horeysay cover letterkii sida caadigaas cover letterka soo horeysa oo inta badan maaragtay soo horeysay. iminka cover letterkan qorna waa kan asxaabtay inaad arkaysaa maan rajeynayaa. terkii maxamed cali gmail emailkiisi baan qornay yacni emailkaygiiba halkaas ku qoran cover letterka iyo lambarkaygii waxaygiiba waxaan waraaqdan u diray ninka managerka heerinka shaqaalaha waa ka CV-gayga asxaabtay CV-gayga waa ka CV-gayga qaabkaasuu dhigan yahay. waxa ugu soo horeeya oo ugu sarreeya magacaygii waxaan sheegay adresskaygii waxaygiiba asxaabtay wanaga siduu qorayo ayaan intusaya yacni adresskaaga siduu qorayo kale ayaad arkaysaa. adresskaaga waa ka adresskaaga ka markii sawirkiina wuu dhigay waa ka sawirkiina kaa dhigay koonayar buu dhigayaa. waqtigii jaamacadda ka qalin jabisay waa kan academic detailskii degree baan qaatay 2010 qoys buu geliyay asxaabada. aggregate-kii imtixaankayga waxaan keenay 3.7 goals bay ahayd sanadkii wuxuu ku raacay experience-gii waa ka asxaabtay yacnihii shaqada waxaad ka shaqayn jirtay waxaad qaban jirtay duties-kii wixii oo dhan buu waa ka ku qoray. field interest-ka xiisay oo kuwa macallin waa kan reference-kii ugu dambeeyay iminka marka hoose cali axmed buu ahaa cashier buu ahaa mof buu ka shaqeeya cali labadii waa ka emailkiis wixii siiba halkaasuu ku qoran yahay. marka asxaabtay waa ka signkayga asxaabtay ay saxiixayay markaan idin sheegay waa ka halka hoose ku qoran waa ka maxamed cabdi. marka asxaabtay dee waa noocaas uu qoray waa application noocaasa dee inaad ka faa'iideen baan rajeynaya insha allah. applicationaduna runtii application-kan oo kale tijaabisaad ku baranayso aad isagii uu ku hagayo wixii ku hagaya dee wax ku taraya waa fiican yihiin. marka asxaabtay waxaan leeyahay kolley waa loo baahan yahay qofku inuu si fiican qorto oo ka turjumaya dee wuxuu yahay ka turjumaya. marka asxaabtay waxaan rajeynayaa inaad CV fiican qorataan insha allah. marka asxaabtay CV waxaan idin leeyahay channelka subscribe saara like iyo comment-gan ha ka subscribe-tan saaxiibayaal ku qabto baan leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu.